Soomaaliya ayaa dhawaan magacawday guddiga farsamada ee maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya kaasi oo ka kooban 27 xubnood oo laga soo kala xulay beelaha ku dhaqan gobolada dhexe ee Soomaaliya. Markii ugu horeysay ayaa waxaa dhismaha guddigaasi ka soo horjeestay mid kamid ah beelaha dega gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, waxaana xildhibaano iyo waxgarad kulan isugu yimid maanta magaalada Muqdisho ay sheegeen in ay dhaliilsan yihiin qaabka dawladda ay u soo xushay guddigaasi. maanta waxa la samaynayaa maamul u dhaxeeya galmudug meesha la yiraahdo hadii la galay indaas mudug iyo galgaduud. waxaan u malaynayaa raggii hadda markii ergaha la qaybiyo dadka qaybiyay ee marooqsiga jiray wax ku qaybiyeen mooyee kuma qaybin dagaanka sida loo degan yahay oo uu yahay ma aysan ku qaybin. waxa jirta mudug markii la yiraahdo anu waxa ka soo bilaabaya shishay oo aan qaarno meel waana la degan yahay oo dadka degan baan ka mid ah dagaankan ka mid ah meel la kaliya yaaba degan. abashadaas darteed waxaan leenahay wixii dhacay wax aan qaadan karo ma ahan af buuxa oo waaqic ah oo codkiisa lagu dheereysanayo ayaan ku diidanahay. cadaalad darro iyo dulmi meel lagu beegayo annaga inaan dhex fadhino waxay noo tahay sharaf dhac. marka munaasabadan oo ku saabsan arrinka maamul samaynta mudug iyo galgaduud oo hadda ugu dambeysay sida wax loo wada aad baan uga xunaa. dawladda ay u sareeyaan madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaaraha cabdiweli qaabka ay wax u maamuleen waa qaab runtii meel wax lagu tiriyaan la aqoon. xildhibaan Sandheere oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabagabadii halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay inaanay guddigan loo dhisin qaab cadaalad ay ku jirto. sida uu sheegayay walaalkay ugaaska Axmed Cumar waxa weeye beel aan qayrinahayn ka qayrinahayn ma jirto. annagu laakiin waxaan nahay beesha kaliya oo ka soo baxday iyadoo mikrofoonkii shirkaas marka la daaray dadka oo dhan oo beesha deganna waa og yihiin inaanan ahayn dad dawladdu dumiya dad ka hor yimaada Soomaali wax loo dhisayo. laakiin waxaan diidnay habeenkaas haddana aan diidanahay birina diidi doonaa wixii ku dhisan dulmi. waxaan madaxda qaranka ku iri iyo guddiga xarafkii cidda reerkan waa taqaano maamaayadu waxa weeye waa kulli waa diini. annagu caruura waxaan la baranaga xarafkii ku qalloocdaa alif ku qalloocdaa albaqra kuma tooso. Abdullahi Ahmed Nur, Universal TV.